kulan wacan daawadayaal waa muuse xoshow waxaad kusoo dhawaataan wararka suuqa kala iibsiga iyo waxyaabihii wargeysyadu ay ka qoreen qodobada aan idinkugu hayo waxaa ugu waaweyn Bayern Munich oo 3 kooxaha Ingiriiska ku garaacaysa saxiixa ciyaaryahan ka tirsan kooxda Borussia Dortmund. Barcelona oo wada xiiseynaysa xidigaha Nkunku iyo Luis Diaz haddii ay ku biirayaan Barca iyo haddii kale warbixinayaan idinkaga haya. Sidoo kale waxaad ku daawan doontaan naanaysta cusub ee xidigaha Real Madrid ay ula bixeen Kylian Mbappe kadib ciyaartii Sevilla. Van Dijk oo ka hadlay mustaqbalkiisa kooxda Liverpool iyo kan Mohamed Salah ee kooxdaas. Arsenal weeraryahan waxa ay ka dalbatay kooxda Atlanta iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan idinku hayaa ee qaybta YouTube-ka inoo subscribe gareeya haddii aad nagu cusubtiin, haddii aad horey noola joogteen inoo share gareeya waanad ku mahadsantihiin la socodkeena. Sidoo kale qaybteena Facebook followda inoogu soo dhufta. Aynu ku bilowno. kabtanka kooxda Liverpool Virgil van Dijk ayaa waxa uu warbixin ka bixiyey Liverpool sida ay ka yeelayso saxiixa Mohamed Salah oo kooxdan ka tirsan haddii uu qandaraaska kooxdan gegida Anfield sii kordhinayay iyo haddii kale. Virgil van Dijk ayaa sheegay in dhinaciisa mustaqbalkiisa garoonka Anfield uu ku xirnaan doono sida kooxdu ay ula hadasho tan iyo maalinka ugu dambeeya qandaraaska uu kooxda kula joogo. Mohamed Salah qandaraaskiisa ayuu sidoo kale soo hadal qaaday kadib guushii ay ka gaareen kooxda Spurs. Kabtanka Liverpool waxa aanu weli qandaraas u saxiixin kooxda Liverpool tan iyo bisha January 1 wixii ka dambeeya uu bilaabi doonaa inuu wadahadal la sii furo kooxa ka baxsan horyaalka Premier League haddii aanay Liverpool wax qandaraas kordhina ugu yaboohin. Warar ayaa sheegaya in Van Dijk uu doonayo inuu sii joogo garoonka Anfield balse kooxda Liverpool aanay weli wax wadahadal ah oo rasmi ah kala furin in uu heshiiska kordhiyo iyo in kale. Isla kooxdaasi ciyaaryahankeeda garabka ka ciyaara ee lagu magacaabo Mohamed Salah ayuu sheegay kabtan Van Dijk in kooxda uu aad muhiim ugu yahay balse isna wax qandaraas kordhina kooxdu uma aanay bandhigin oo dhammaystiran. Ciyaaryahanka Kylian Mbappe ee kooxda Real Madrid naanays cusub oo hor leh ayay u bixiyeen xidigaha kooxda Real Madrid tan iyo markii uu bandhig fiican ka sameeyey ciyaartii Sevilla ay la qaateen toddobaadkan. Kylian Mbappe ayaa naanays cusub ka helay saaxiibadiisa Real Madrid markii uu gool qurux badan ka dhaliyay kooxda Sevilla Axadii. Faransiiska kabtankooda ayaa hadda waxa uu la soo qabsanayaa nolosha magaalada Madrid ee wadanka Spain, waxaana ay u bixiyeen Mbappe Pinazzo oo xerada labiska ee kooxdan isagu looga bixiyey. Sida uu warinayo Defensa Central oo wargeyska la yiraahdo 25 jirkan ayaanay ku ammaanayaan marka magacaas loo fiiriyo in uu banaanka ka dhalin karo goolal laadadkoodu xooggan yihiin. Jeremy Gittins ayaa ku biiri kara kooxda Bayern Munich iyo saaxiibkiis Harry Kane oo halkaas jooga. Borussia Dortmund ciyaaryahanka ka tirsan ayaa u dhaqaaqi kara kooxda Bayern Munich oo aad u xiiseynaysa inay la saxiixato. Bundesliga kooxda ka dhisan ee Borussia Dortmund oo ciyaaryahanka Jeremy Gittins iska leh garabkana isagu ka ciyaara waxa ay sheegtay in uu dalab ka helayo kooxda muruqweynta ah ee horyaalka Bundesliga. 20 sano jirka reer England ee kooxda Dortmundna ka tirsan koox far badan ayaa xiiseynaya tan iyo markii uu ka tagay Manchester City xeradeeda dhalinyarada laga soo saaro. Waxaa ciyaaryahankani uu bandhig fiican ka sameeyey kooxda Dortmund. Kooxaha reer London ee Arsenal iyo Chelsea iyo weliba Liverpool oo iyana England ka wada dhisan ayaa dhammaan xiiseynaya xidigan sida Sky Sports uu wariyay, balse kooxda German Bundesliga ugu xooga badan ee Bayern Munich tababareeda Vincent Kompany wuxuu sheegay in xidigan ay soo qaadanayaan. Agaasime Max Eberl oo isla Bayern Munich ayaa sheegay inuu bedel u noqon karo Leroy Sane oo mustaqbalkiisu aanu fadhin iyo Gnabry oo isna bandhig ahaan aad hoos ugu sii dhacaya. Kooxda Chelsea ciyaaryahanka garab weerarka uga ciyaara Christopher Nkunku ayaa dalab rasmi ah waxa wakiilkiisu uu gaarsiiyey kooxda Barcelona. 22 jirka wadanka Faransiiska kasoo jeeda ayaa lala xiriirinaya inuu ku biiri karo kooxda La Liga Spain ee Barcelona. Wargeyska Sport ayaa warinaya kooxda Newcastle ayaa ku qasbanaan doonta inay wadahadal la furto kooxaha danaynaya Sandro Tonali oo 24 jir Talyaaniga u dhashay ah kaasoo kooxdu ay doonayso inay iska iibiso. Juventus iyo kuwo kale ayaa ka mid ah kooxaha xiiseynaya xidigan khadka dhexe. Football Insider ayaa sidaas wariyey. Chelsea
waxa ay heshay dalabaad ku aadan 28 jirka Ingiriiska difaaca bidix uga ciyaara oo la yiraahdo Ben Chilwell, kaas oo hal kulan kaliya u ciyaaray kooxda Chelsea. kulankaasina waxa uu Carabao Cup xilli ciyaareedkan oo dhan. wargeyska Sun ayaa wariyay Arsenal waxay wakiil loo dirtay kooxda Atlanta si ay ula wareegto 25 jir weerarka ka ciyaara oo Talyaaniga u dhashay Matteo Retegui, kaas oo muhiim ay u aragto kooxdani. Talksport ayaa wariyay xiisada ka aloosan kooxda AC Milan tababaraheeda iyo Faransiiska difaacooda Theo Hernandez waxa ay sababi kartaa in 27-jirkani uu kooxda isaga dhaqaaqo isla markaana uu ka wareego dhinaca San Siro. Real Madrid iyo Manchester United ayaa dhammaantood xiiseynaya, sida uu warinayo Tutto Mercato Talyaaniga ah. warar xan ah ayaa muujinaya in kooxda Liverpool weeraryahankeeda Luis Diaz oo 27 jir ah ay aad u xiiseynayso kooxda Barcelona, balse xidigan waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay gegida Anfield, waana suuragal inuu qandaraaska u kordhiyo naadiga Liverpool haddii kooxdu ay doonayso inay xidigan sii haysato. isagaas ayaa ugu dambeeyay wararkii wargeysyada iyo suuqa kala iibsiga. daawadayaal waad ku mahadsantihiin la socodkeena. inoo subscribe gareeya qaybta YouTube, Facebookana follow inoo soo dhaaf.